maanta taariikhdu tahay 25 bishii Oktoobar 2025 waxaan ku soo dhaweynay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhobley xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare oo runtii in badan deegaanka ku soo laabtay wax badan ka qabtay xildhibaan ku soo dhawow dalkaaga iyo dadkaaga ku soo dhawow Dhobley ku soo dhawow oo ahayn markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad ee aad ugu soo laabtay runtii mashaariic badan oo noo keenay xildhibaanka aad baan u mahadcelinayaa waxa kale oo mahadcelinaynaa dadweynaha reer Dhobley ee soo baxay odayaasha maamulka degmada qaybisa kala duwan ciidamada amniga gabdhaha dhalinyarada dhammaan u taagna maanta oo dhan qoraxda iyadoo lagu jiro xilliga aad kuleelaha uu jiray u taagna xildhibaankooda iyagoo raba inay soo dhaweeyaan iyagana waan u mahadcelinayaa baada saxaafadana waan u mahadcelinaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa xildhibaan mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawow degmada Dhobley iyo dadweynaheedu aad bay runtii ku jecel yihiin dareenkooda maanta arkaysa insha Allah tacaala soo dhawow xildhibaan waxaan maanta safar shaqo aan ku tagay degmada Dhobley waan u tagay safar shaqo waxaa aad igu soo dhaweeyay shacabka degmada Dhobley iyo maamulka degmada Dhobley marka hore waxaan u mahadcelinayaa maamulka degmada iyo shacabka qaybahooda kala duwan gabdho iyo wiilal odayaasha dhaqanka dhammaan iyo dadka weynaha igu sugay garoonka saacado badan iyadoo xilli kulul lagu jiro marka hore waxaan leeyahay mudane gudoomiye adiga maamulkaada iyo shacabka degmada waa idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta diiran waa ii sameyseen haddii ilaa ka raan noqdo dib ayaan isaga wareysan doonaa hadda waa uun mahadcelin maadaama ay qoraxdana kulushahay in badan ayaad na sugayseen mahadcelin bay ku kooban tahay dib baan isu wareysan doonaa xaaladda guud ee degmada iyo deegaanada hoostagaba iyo howlaha ka socday mashaariicaha ka socday iyo caqabadaha jira iyo waxyaabaha aan u wadnaa kala dheeriga aba dib baan isaga wareysan doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin